shirka golaha wasiirada ee toddobaadkiiba hal mar la qabto ayaa maanta waxaa shir gudoominayay madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigeena waxaana looga hadlayaa xaaladda amni deegaanada koonfur galbeed abaaraha xil wareejintii maalmahan ay sameynayeen golaha wasiirada koonfur galbeed kulanka waxaa goobjoog ka ahaa wasiir dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya oo maamulka koonfur galbeed kala hadlay sidii tubta nabadda loo gaarsiin lahaa deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya shirka oo albaabada u xirnaa ayaa markii uu soo idlaaday waxaa saxaafadda la hadlaya wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta koonfur galbeed Soomaaliya Ugaas Xasan Cabdi Maxamed Soomaaliya waxaa kamid ah guud ahaanba arrimaha ammaanka siyaasadda dhaqaalaha iyo abaaraha ama kuleylka bilihii la soo dhaafayba ka jiray gobolada koonfur galbeed Soomaaliya gaar ahaan degmada Baydhabo iyo nawaaxigeeda haddaan qodob u dul istaagno golaha wasiirada waxay warbixin dheer ka dhageysteen wasiirka wasaaradda amniga dowladda koonfur galbeed Soomaaliya Isaaq Cali Subag oo warbixin dheer halkaas ka soo jeediyay toddobaadkii la soo dhaafay xaaladda guud ee amni ee reer koonfur galbeed Soomaaliya sida ay tahay isagoo si qoto dheerna u dul istaagay sheegayna in 24 saac oo la soo dhaafay gobolada koonfur galbeed Soomaaliya guud ahaanba wax dhibaato aysan ka jirin magaalada Baydhabo oo ay tahay xarunta ay ku shaqeyso dowladuna ay tahay meel amaana oo ay wax dhibaato aysan ka jirin walow ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo koonfur galbeed Soomaaliya ay meelaha qaar shabaab kula dagaalamayeen anagoo og waajibaadkooda qaran iyagoo gudanaya in ay u taagayeen hari habeenba sugidda amniga gobolada koonfur galbeed iyo gaar ahaan Soomaaliya oo dhan sidoo kale waxa la isla soo qaaday sida la ogyahay toddobaadkii la soo dhaafay waxay ahayd toddobaad aad u mashquul ah oo golaha wasiirada koonfur galbeed Soomaaliya ee cusba xilalka ay la kala wareegayeen kulankii ugu horeeyay markii ay wasiiradu la wareegeen xilalkoodana oo ah kulankan maanta madaxweynuhu shir gudoominayay ayadoona ammaan iyo bogaadin loo soo jeediyay wasiiradii hore ee u soo shaqeeyay koonfur galbeed Soomaaliya shaqada wanaagsan meesha ay soo gaarsiiyeen halka ay wax ka soo bilaabeen iyadoo waliba aad loogu amaanay iyadoo aan maamul awood leh u san jirin inay duruufo badan ku soo shaqeeyaan haddana ay dowladda dhinaca kale Cabdullaahi Xamuud wasiir dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo shirka ka qayb galay ayaa waxa uu bogaadin u jeediyay maamulka koonfur galbeed waxaana sidoo kale uu ka hadlay ujeedkooda Baydhabo waxaan si gaar ah inaan ugu mahadceliyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigeena oo nagu casumay golihiisa wasiirada shirkoodii qamiislaha ah oo maanta ka dhacay magaalada Baydhabo ayna tahay mid aan hore ugu ballanay madaxweynaha markuu xilka la wareegay markaan imid Baydhabo inuu aad u daneynay rabayna inuu wasiiradiisa cusub ay la jaan qaadaan dowladda federaalka iyo sidaan u shaqeeyno xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo qaasatan tubaha xafiiska ra'iisul wasaaraha oo ka shaqeeyo annagana waanu ka aqbalnay maanta waxaan la imid dhowr toban qof oo xafiiska ra'iisul wasaaraha ka socdo oo u badan dadka ay hormuudka ka ahaa daadejinta iyo ka shaqeynta tubaha Soomaaliyeed oo rabnay hadda in loo daadijiyo dhammaan maamul goboleedyada dowladda ay xiriir kala leh dowladda federaalka ah qaybta kamid ah dowladda federaalka ah si ay ajandada dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ay mid u noqdaan maadaama annaga aan u shaqeynayno horumarinta arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha ay wadanka Soomaaliyeed dowlad goboleedkana ay yihiin qaar kamid ah maamulkaas waxaan isla istusay in xafiiska ra'iisul wasaaraha oo si xoogan ula shaqeeyo dhammaan maamul goboleedyada si arrimaha aan ka shaqeyno iyo daadijinta tubaha Soomaaliyeed tubaha afarta tubood aan ka shaqeyno inay loo daadijiyo dowlad goboleedyada Shukri Ismail Ahmed JTV Baydhabo